ما حسنت ودوه أستاذ مصطفى waxaad la socotaa waayihii ugu dambeeyay dalka Ethiopia waxa ka socday iyo guud ahaan geeska Afrika markaan ka hadlayno arrimo isbedel xawli badan kuwaas oo asalkoodii uu ka soo unkumay dalka Ethiopia gaar ahaan markii uu iscasilay ra'iisul wasaare Desalegn kadibna xilka ra'iisul wasaarenimada uu la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ah nin ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo inta taariikhda la og yahay hore aan fursad u soo helin in ay maamulaan dalka Ethiopia waxaan ognahay xukunka badana waxa ku loolami jiray inta badan Amharada iyo Tigreega labadaas qowmiyadood ayay ahaayeen qowmiyadaha ugu badan ee ka taliya dalka Ethiopia ilaa iyo taariikhdii fogeyd haddaba adiga aragtidaada sidee kula muuqdaan isbedeladaasi dhacay 6 bilood ee ugu dambeysay ee uu xilka dalkaasi uu hayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa daawadayaasha Ustaad Ismaaciil adna ku salaamayaa oo mahadsan tahay iyo tiimka kale ee barnaamijka inala duubaya intaba sida u tilmaantay Ethiopia waxa ka dhacay isbedel weyn taariikh ahaan marka la eegana runtii waa isbedel aad u weyn isbedelkaas weynkiisa waxa lagu garan karaa markii aynu tilmaano Ethiopia sidee bay ahayd waxa isbedel maxay yihiin Ethiopia markii laga hadlayo Ethiopiadan cusub waxa la yiraahdaa samaysankeedu wuxuu soo bilowday 1855 wuxuu socday ilaa 1955 waa muddo 100 sano توضرس بقول كيلو أورنج ربي كسر بلعبنته إلا حلقة حيل سلاسة إثيوبيا وأصداد تلمانتي قومية ديار أو دكان وقوية يرح برتمها إثيوبيا أو أمحارة يتكرئة يدلك كتلين جري بقرطوية أيجا إسكوب بدل جري دينهان وحي أهاين أرثوذكس قوميدهان كليتو marka muddadaas lagu qabsaday oo ay ku fideen qowmiyado ka xiga galbeedka ay ku fideen qowmiyado ka xiga bariga ay ku fideen qowmiyado ka xiga koonfurta ay ku soo fideen xataa bartamaha Ethiopia qowmiyadahan badan aynu arkayna marka xilligaas ayay yahay Ethiopia marka waxay ku dhisnayd wadan ay dadka reer waqooyiga ay u taliyaan oo ah Amxaarada iyo Tigreego isku isra isku diin ah oo isla masiixiin orthodox ah afkoodu isku dhow yahay iyaga inta kale tana madax u ahaa imbaradoriyad aad u ballaaran bay noqotay dadka kale to marka waxay ahaayeen dad waxay Ethiopia markii la fiirsho maadaama sida ay ku samaysantay waxay iska dadku ay yani waa wadan baa ka dhaxeeya laakiin ummad isleh ma aha oo israhan way kala duwan waxa lagu tilmaamay ilaa 8 meeyo isir oo kala duwan weeyaan ha kala babataan diinahaana way kala duwan yihiin waa muslimiin iyo masiixiyiin iyo dad kale oo muslimiinta ana dabcan badan masiixiyiintu waa orthodox iyo noocyo kale iyo protestant iyo baysi kale leeyihiin iyo catholic xataa way leeyihiin marka waxa talinayay waa Amxaarada iyo Tigreega oo waqooyiga degan oo isku diin orthodoxna ah intoodaas talinayay markii Haile Selassie uu joogay iyo hortiisba waxay ka shaqeysay dawladda marka imbaradoriyadani waa dhaxaltooyo dadka in la amxaareeyo marka qowmiyadaha kale oo dhan waa in diintii Amxaaradu ay haysatay kiristaankii orthodoxka ay qaataan afkii Amxaariga ahna waa inay qaataan marka halka waa Amxaareyn baa ku jirtay dadkan marka hantidii waxay galeysay gacantooda khayraadkii dalku wuxuu galayay gacantooda dadkan kale marka waxay iska ahaayeen muwaadiniin darajada labaad isbedelkan marka Dr. Abiy loo doortay oo noqday sanadkan 2018 6 bilood ka hor dhacay waxa lagu tilmaamay inuu yahay isbedelkii saddexaad isbedelkii koowaad wuxuu dhacay 1974 markii inqilaabkii Mengistu uu sameeyay dargigu uu sameeyay inqilaabkaas wuxuu sameeyay boqortooyadii ayuu boqortooyo ka bedelay awal hore waxay boqortooyo dhaxal ku dhisan boqortooyadii buu ka bedelay oo wuxuu ka dhigay nidaam hanti wadaagga jamhuuriyadda ayuu noqday ciidan baxa haysto laakiin nidaam jamhuuriyaddu noqday dhaxaltooyadii meesha way ka baxday taas talaabo weyn ayay ahayd marka loo eego dastuurka Ethiopia waxa kale oo ku jirtay iyadana kaalintii dastuurka Ethiopia wuxuu ahaa mugtay waa inay dawladdu inay tahay dawlad masiixiyo orthodox si fiican
taasina markii uu Mengistu uu qabsaday iyadana way dhimantay oo waxay noqotay diimaha kaleetana inaan iyagu diin badan ugu lahayn masiixiyiintu ha jirto oo iyadu diintii koowaad ha u ahaato laakiin wax weyn oo dastuuriya ma haysanin marka taas isbedel weyn bay isbedelka kale labaad wuxuu dhacay 1991 markii xukunkii dargigu uu dhacay markaa waxay noqotay waqtii ay la wareegeen jabhadii mucaaradka ah dastuur la sameeyay 95 waxay noqotay marka dastuur federaal ah awoodii dawladnimada ee markii hore dawladda ay gacanta ku haysay waxa la siiyay qowmiyadaha 9 qowmiyadood oo kala duwan qowmiyad walbana ay u leedahay xaq in ayagu ayaga ay ka tashadaan oo haddii ay isu codeeyaan wadanka way ka go'i karaan qodobka 39 marka halkaa waxaa ku jirta isbedel weyn oo dastuur ah ayaa ka dhacay oo federaal wadankii uu noqonayo dadkii waxa qolo walba loogu soo daray in afkooda iyo diintooda inay xor u yihiin afkooda xataa inay isku maamuli karaan waxa dib loo celiyay oo meesha awood ahaan meesha laga saaray amxaareyntii in dhaqankii iyo diintii iyo afkii wixii amxaarada la wadawadeedii way ka baxday yani dawladdu ma qasbayso marka kadibna waxay noogu xigay kan 2018 waxa lagu tilmaamaa marka kan 2018 inuu dhamaystir u yahay isbedelkii 90koodii waa isbedelka 90koodii ee federaalku dastuuri buu ahaa laakiin siyaasad ahaan aad uma hana qaadin nidaamku weli kale talis buu ahaa gacanta wuxuu ku urursanaa dad Mela Zanaawi iyo jabhadan Tigreega iyo EPRDF guud ahaantood intaas gacantooda ku urursanaa waa isla reer waqooyigii laakiin diin ahaan waa isla ayagii laakiin tallaabooyin marka kan wuxuu dhamaystirayaa isbedelkii weynaa dastuuriga ahaa ee dhacay 91 in kanina uu sii dhamaystirayo sidaas ay u muuqataa marka watahay markaan taariikhda dib u eegno waxaad soo sheegtay in markii ugu horeysay ay tahay ay oromada ka taliyaan dalka Ethiopia ama qofka ugu sareeya ee dalkaasi maamulaya xukuumadda hagaya uu noqdo Oromo taariikhda markaan dib ugu laabano dhibaatooyinka gaarka ahaa ee lagu hayay qowmiyadaha kale aan ahayn labadii qowmiyadood aan soo sheegnay in ay u kaltami jireen xukunka dalka Ethiopia ee amxaarada iyo Tigreega qowmiyadaha kale maxaa dhibaato ah oo ka soo wajihi jiray ama ay kala kulmi jireen nidaamyadii kala duwanaa ama kuwii boqortooyada hadday tahay ama kii dambe ee shuuciyadda ku salaysnaa ee Mengistu Haile Mariam uu maamulayay 74 ilaa iyo 91 markii meesha laga saaray intii u dhaxaysay maxaa culays oo haystay marka qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia culays weyn baa horta haystay waxay ahayd waxaynu ku tilmaanay in amxaareyn ay meesha ka socotay waxa la bedelayay dadka dhaqankooda waxa la bedelayay afkooda waxa la bedelayay diintooda khayraadka waxay ku ururayeen iyo awooduba labaduba waxay gacanta ku jireen amxaaradii gacanta ku jireen ayay gacanta ugu jireen marka halkaa marka la eego culays weyn waa la cadaadin jiray waa la dhibi jiray maba degin baa la odhan karaa hadda oromada oo kale haddaynu tusaale usoo qaadano 150ka waa hal qarni iyo badhe halkaa qarni iyo badhka cadaadis un bay ku noolaayeen qiyaastii 60maadkiina kacdoon bayba sameeyeenba oo nus qarni hadda kacdoonkan Dr. Abiy uu ku noqon doono ra'iisul wasaaraha waa kacdoon soo taxnaa ilaa 50 sano nus qarniya marka waa Soomaalidu waxay kaga yar duwaneed dhibku hala qabto laakiin way soo yar fogeyd dhabarkan waxay ku haysay jamhuuriyaddii Soomaaliya laakiin oromadu maadaama ay bartanka Ethiopia ay deganeed qowmiyadii ugu weyneedna ay ahayd halka dhib badan bay la kulantay watahay 1991 isbedelkii labaad ayaa tilmaantay inuu ka dhacay dalka Ethiopia oo markaas oo awoodii ay u muuqatay in mar kale amxaaradii laga qaaday oo gacanta Tigreega ay ku soo dhacday oo hoggaanka iyaga ay qabteen xilligii Mela Zanaawi oo xukunka dalkaasi hayay oo muddo ilaa iyo 20 sano ka badan maxaa isbedelay marka maxaa farqiga u dhaxeeyay boqortooyooyinkii soo jireenka ahaa ee dalkaasi maamuli jiray iyo sidoo kale nidaamkii dargiga ee Mengistu Haile Mariam maxaa isbedela oo ka dambeeyay oo EPRDF ay la yimaadeen oo halkaas ay ka hirgeliyeen Ethiopia EPRDF oo dabcan ay ugu lafdhabar ay xudun u ahayd Tigreegu ay u ahaayeen Tigreegu soo waa qowmiyad yar TPLF amxaaradii oo xukunka haysan jirtay waxay qowmiyad weyn oo wadanka ruuciisa qiyaastay tir ahaan aad u ballaaran bay ahayd saadarteed Tigreegu marka halka laga fiirsho markii horena ay kamid ahayn jabhadii soo dagaalamayay tabanayay ay ku jireen furfuritaan
ayay sameeyeen tallaabooyinka ugu weyn ee dhacay wax weyn in waddanka laga dhigay waddan federaal ah dastuur baa loo sameeyey qoomiyad walba waxaa xaq ay u leedahay in iyadu ay u codeyso haddii ay waddan ay ka tashibay ayaa awood loo siiyey qolo walba waxaa meesha ka baxay afkii amxaarada ee lagu qasbayey waxaa meesha ka baxay diintii kiristaanka ahayd iyaduna oo lagu qasbayey marka waxay noqotay dadku diin ahaanna inay u siman yihiin ugu yaraan heer dastuur siyaasad ahaanna ay u siman yihiin af ahaanna ay u siman yihiin afkooda xataa ay isku maamuli karaan oo ay ku adeegsan karaan marka halkaa marka la eego dhinaca waxaa ka dhacay furfuran dastuur iyo xoog leh xisbiyo ayaa la furay laakiin dhinaca kale haddana markii la eego si tartiib ayaa awooddu waxay ugu ururtay haddana isla gacantii TPLF-ta markii sii xoogeysteen awooddu gacantoodii kusoo ururtay waxaad ka garan kartaa doorashadii ugu dambeysay ee 2015 ka dhacday baarlamaanka Itoobiya lasoo doortay 550 meelahaas weeyaan qiyaastii ilaa qiyaastii يعني waxay u ahaayeen dhammaantood marka la isku daro ama waxay ka tirsaneen EPRDF ama gacan saar bay la lahaayeen waa baarlamaan dhan oo la soo doortay oo hal qof oo mucaarid ah oo kursi ku lahayn waxaad garan kartaa marka halka awoodii si kale haddana mar kaliya ee muddo qabr waa si tartiib ay ahayd si tartiib haddii 2015 la fiirsho ee doorashadii ka horeysay waxoogaa yar bay mucaarid ka heleen tii ka sii horeysay way sii dhaantay marka waxyaabaha qaraxa keeni doonayna ka mid tahay in awoodii mucaaridna ma jiro codna ma jiro caburin baa jirtay amnigii baa gacanta lagu hayay marka musuqmaasuq xoog leh dalkii ka dhacay marka furfuranna wuu dhacay haddana awoodii waxay dib ugu ururtay haddana Tigreegi marka halkaas dhib weyn ayay ku keentay watahay isbedelada kale waa weyn ee ka dhacay dalka Itoobiya taariikhdan dhow waxaa ka mid ahaa markii Eritrea ay ku dhawaaqday in ay ka go'day Itoobiya inteeda kale waxaan ognahay markii hore ilaa 1960kii markii kacdoonka Eritreaanka ay soo bilowdeen ama dagaalkoodii jabhadeynta ahaa oo dawladda Soomaaliya laftigeeda ay taakulo badan ama gacan badan ay siin jirtay halganno kala duwan oo dalkaasi ka soconaya oo sida qoomiyadaha Oromada oo xilligaas Soomaaliya abo oo dawladdii kacanka ahayd ay ugu yeeri jirtay ama Tigreega Eritreada intaas intaba marka waxaa dhacday 1991kii markii la eriyay bilowgii hore isla markii kama aanay goyn ilaa 93kii wixii ka dambeeyay Eritrea gooni ayay uga go'day Itoobiya inteeda kale marka taa maxaa u sababaha ma qorshihii markii hore u degsanaa Eritreaanka waxa uu ahaa in sidoodaba ay noqdaan dal madax bannaan oo ka go'a Itoobiya inteeda kale mise markii ay ku qanci waayeen qaabkii ay hawsha u wadeen xisbigii EPRDF-ta ee Meles Zenawi uu horkacayay ayay go'aansadeen in ay ka go'aan Itoobiya inteeda kale horta go'aanku wuxuu ahaa dawladdii Itoobiya xoog badnayd yaa hal mar burburtay oo military ah jabhadihii ka soo horjeeday ee qoomiyadaha kala duwan ka koobnaa ee la dagaalamayay qoladii xoog lahayd qaarkood waxay lahaayeen inay aaya ka talin qoomiyadaha aaya ka talinta rabay waxaa ka mid ah Tigreega waxaa ka mid ah Soomaalida waxaa ka mid ah Eritreaanka waa qoomiyadii ugu muuqday aaya ka talinta ayay ahaayeen marka Eritreaanku maadaama ay xoog lahaayeen ay habaysnaayeen ay abaabulnaayeen markiiba awood kale oo ka hor timaadaana ma jirin cid u diidi kartaana ma jirin labadan sano waxay u sii joogeen waxay ahayd waa habraaca wuxuu ahaa waa in afti la qaado waa in aftiga natiijadii bas ha intaas ay ahayd marka horeba iyaga ismaamulayay markiiba dhulkooda iyaga qabsaday iyaga ka talinayay laakiin waxa la sugayo kaliya in inta la sugo sidii yani talaabooyin si dastuuri ah inay u baxaan oo talaabooyin la qaado aftidii kadibna marka dawladda dhexena ay iyaduna u sii waafaqdo si tartiib in loo kala baxo laakiin waxay ahayd iyaguna inay gaar u baxaan bay goosteen qoladan kale tan way la ogolaayeen albaab kale uma furnayn awood ay ku celiyaan ma haynin way ku qasbanayeen marka tan waxay iska ahayd oo kaliya ta uun wada la mariyay intaas ma ahayn wax kale duwanaansho ma ahayn daawade haddii aad hadda nagu soo beertay waxaad daawanaysaa telefishinka caalamiga ee Kalsan barnaamijkuna waa barnaamijka diiradda Kalsan oo toddobaadkan aan si gaar ah ugu falanqeynayno isbedelada xawliga leh ee ka soconaya Itoobiya gaar ahaan 6 bilood ee ugu dambeysay xukunka dalkaasi uu la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo guud ahaan taariikhda taxanaha iyo sooyaalka Itoobiya ayaan ku eegaynaa sidaan hore in kugu sheegay barnaamijka waxa igu marti ah ustaad Mustafa Abdullahi Fayrus oo ah bare jaamacadeed oo wax ka dhiga mid kamid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho isla markaana ah
falanqeeye u kuurgala arrimaha caalamka gaar ahaana arrimaha geeska Afrika waa tahay haddaan dib kugu soo laabto mar kale isbedelkii ka dhacay Ethiopia 1991 maxaa uu ka bedelay xaaladda deegaanka Soomaali galbeed dadka qaar ay u yaqaanaan hadda xililka ama dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida lagu magacaabo ama dadka qaarkood ay ogaadeen iyo ugu yeeraan qof magaca isaga uu markaas uu doonayo inuu ugu yeero waxaan ognahay in dagaal uu dhexmaray Ethiopia iyo Soomaaliya waliba dagaal aad u weyn oo ahaa 77kii dagaalkaas oo ku lug lahaa sidii dib loogu soo xoreyn lahaa ama gobolka Soomaali galbeed loogu soo biirin lahaa Soomaaliya inteeda kale laguma guuleysan waan ognahay military ahaan waxa la oran karaa dagaalkaasi Soomaaliya ay ku guuleysatay laakiin waxay u fashilantay siyaasiyan ay u fashilantay oo halgankaasi wuxuu noqday hal bacad lagu lisay burburkii markuu dhacay oo xukunkii dargiga meesha uu ka baxay waxa soo muuqatay fursad maadaama federaaleyn la sameeyay Ethiopia qodobka 39aad ee dastuurka Ethiopia uu qorayo in qowmiyad kasta ay xaq u leedahay ayad ka tashi ama inay aayahooda ka tashadaan ama ugu dambeyn xitaa inay afti u qaadi karaan inay ka go'aan Ethiopia inteeda kale fursadaas maxay uga dhignayd Soomaali galbeed mase looga faa'iideystay sidii ku habboonayd waa sad horta u tilmaantay laakiin fursadaas oo iska cadahay ma lagama faa'iideysanin lagamana faa'iideysan karin fursaddu markay timaado waxyaabaha ugu horeeya si looga faa'iideysan karo waxaa kamid inaad u diyaarsan tahay markii gobolkaas dawladdii Mingista ay dhacday gobolkaasi ma lahayn awood abaabulan ma jirin jabhadaha jiray markii hore dawladdii Soomaaliya waxa la oran karaa siyaasad xumo weyn ayay gobolka kula dhaqantay jabhadihii gobolka hadii kubcin lahayd oo taakulayn lahayd oo gacan siin lahayd markii dawladda Mingista ay meesha ka baxdo jabhado dhisan oo taagan oo sida Eritrea oo kale maamul leh oo sida Eritrea oo kale wax qabsan kara oo meeshooda la wareegi kara ayay noqon lahayd laakiin dawladda Soomaaliya baa gacan siisay markii dawladda Soomaaliya ay daciiftayna wixii way la burbureen marka halka taas ku dhacday marka gobolkaas markii la eego markii yimaadeen xataa ciidamada Tigreegu mar dambe ayay soo gaareen dhankan Soomaalida waxay filayeen in militariga Ethiopia jabhadii Soomaalida meelaha joogtay ay hubka kala wareegto cid kala wareegtana waa la waayay marka halka fursadaas markii la eego ayagu waxay inta Ethiopia guud ay heshay dastuuriga bay si tartiib inay xisbiyo furtaan ay ka qayb galaan oo maamulkoogii ayagu ay gacantooda ku dhigaan ayaa mar dambe is abaabuleen laakiin markii hore ee isbedelku dhacay ma lahayn gobolku awood u diyaarsan oo kaalintii buuxin karta oo qaadan karta ama mabda'a ka talin ah ama ma abaabulnayn marka halka fursadaasi inta Ethiopia kale ay hesho bay iyaguna dhankooda ka helaan waa tahay haddaan wali ku sii socdo arrimaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ama dhulkan Soomaalida ay degto ee kililka shanaad ee Ethiopia loogu yeero waxaa caan ka ahaa in madaxweynayaasha Soomaaliya maamulkaasi la xiro ilaa iyo markii madaxweynihii ugu horeeyay xilligii dargiga meesha uu ka baxay ilaa hadda kii ugu dambeeyay xabsiga bay ku dambeeyaan intooda badan waa la xiri jiray ma xasuusta laba madaxweyne ayaa laga yaabaa in ama hal madaxweyne inuu ka fakaday ka badbaadaa laga yaabaa ama uu baxsaday xitaa Abdullahi Xasan Ludbuur marka maxaa u sababaha ma faragelin iyo caburin socota oo ah siyaasadii Tigreega iyo Amxaarada markii horeba ay ku maamuli jireen ama kula dhaqmi jireen qowmiyadaha ayaa ku socday gobolkan Soomaalida mise waxaa jiray kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda ah oo waliba ku salaysan ama salka ku haysa waxyaabahan qabyaalada loo yaqaano oo Soomaalidii qabaa'ilka badan ee halka degaa aysan wada socon hal mowqif aysan lahayn aysan midaysnayn taa ayaa sababta la dhihi karaa inay sababtaasi horseedo oo inta badan maamulka uu noqon waayo mid cagaada ku taagan bal aragtidaada baad ka tilmaantay dabcan waa su'aal isweydiin karo moogtay in madaxweynihii dhammaay la doortay muddo ka talinay inuu xabsi galo haddana kii ka dambeeyay xabsi galo haddana kii ka dambeeyay la xiro oo waxyaabo moogtay lala yaabo ma aha inuu qof kaliya waa khalad uu sameyn karaa laakiin in ayaga dhan markii loo fiirsado taariikhda halkaas gobolka waxa la oran karaa dhowr arrimood yaa sabab u ah horta khilaaf dhexdooda wuu jiray xisbiyo iyo xisbi ahaan isku khilaafsan qabaa'il ahaan isku khilaafsan qabaa'ilkii xisbiyada isku dhex qasan yihiin taasi marka waxay keenaysay qofkan jooga waxa jira dad kale oo ku kacsan oo doonaya
inay meesha sidii looga riixi lahaa siyaabaha looga riixana marka waxay ka mid ahayd in dowladda dhexe lala soo kaashado in xaggan hoose gobolka abaabul laga galo marka dhinac waa khilaafkaas siyaasadeed ee dhexdooda ah uu jira oo aan ku sidnayn habkii tartankii siyaasadeed ilaa heer dumin gaadhaya qodobka kaleetoo jira waxa weeyaan oo madaxdii gobolkaasee kala dambeeyey haba kala duduwanaadaane si guud musuq maasuq baa u jira oo qofkii markii xilkii uu ka baxo laga qaado si saxa looga qaado ama si khaladaha looga qaadee haddii aanu waxyaabo khaladaad oo kala badan gelin meel laga soo galo weyni inta badan ma jirayso laakiin musuq maasuqna gobolka uu ka jiraa heerku doona ha la ekaado mas-uuliyiintii kala dambeeya xilliyada qaarkoodna aad ha u darnaado xilliyada qaarkoodna ha fududaado midka kale saddexaadna waxa weeyaan faragelinta kaga imanaysa dowladda dhexe weliba gaar ahaan xilliyadii dambe xilliyadii hore faragelintoodu sibay ama siyaasad bay iska ahayd ama way koobnayd waa iyaga laftirkoodu tabar weyn may lahayn soomaaliduna markii hore tigreegu inay soomaalida ay garab ka helaan oo yar kaalmaystaanna way saa darteed maadaama amxaaro ka xoog badan ay ishayeen soomaalida inay ka xanaajiyaanna may doonaynin laakiin calaa kulli xaal markii dambe soomaalidina way sii kala furfurmaysay axsaabtoodii muxuu ahaaye khilaaf baa yaa kusii dhex batay tabartoodu way iska yaraatay abaabulkoodu hoos buu dhacay dowladdii dhexena way sii xoog badatay faragelinteediina way la korodhay oo way soo kordhaysay marka saddexda arrimood baan aanu isleeyayaa lafdhabar ka ahaa waa tahay muddo dheer ayuu ra-iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Male Zenawi uu ka talinayay Ethiopia waxaad u malaysaa marka in dalka uu gacan adag ku hayay maxaa sababay geeridiisii markii uu geeriyooday kadib oo nin kale oo aan qowmiyaddii Tigrayga ahayn loo dhiibay awoodda Haile Mariam Desalegn in Ethiopia ay kala daadato oo kacdoono iyo dhibaato ay ka dhacaan kuwaas oo aan dhici karin xilligii uu talada dalkaasi hayay ra-iisul wasaare Male Zenawi horta Male Zenawi markii la eego taariikh ahaan qayb isaga ku xirnayd qaybna xilligaa kala duwanaa oo isaga ma ahayn xataa hadduu isagu joogo wuxuun way dhici kari lahaayeen awooddan Tigrayga gacantooda si tartiib ugu soo ururaysay baarlamaanku markii hore mucaarad buu lahaa oo axsaabta mucaaradku waxbay helayeen markii dambe doorashada si tartiiba ayaa waxay ugu ururaysay xisbiga EPRDF iyo kuraastiisa ay kordhaysay ilaa doorashadii 2015 oo isagu wixii oo dhan wada helay ama isagaa helay ama dad gacan saar la leh ayaa helay mucaarad ma dhicin teeda kale markii laga hadlayo xisbiga EPRDF-ku waa 4 qowmiyadood oo kaliya halka 9 qowmiyadood oo waaweyn shan ka maqan marka shan baa ka maqan waxa waa amxaaradii iyo Tigreegii waxa soo raaca waxa weeyaan marka oramadii afartu kuma jirto iyo gobolkan koonfurta shucuubta Ethiopia la yiraahdo Benishangulka iyo Gumuski waxa nooca kala may Benishangulka way ka maqan yihiin waxa weeyaan waxa la shucuubta koonfureed aha marka siidaamadii iyo hadiyadii iyo waleytadii iyo qowmiyada yaryar weeyaan yani waxa weeyaan 10 qowmiyadood ee ugu badan Ethiopia marka la eego 10 qowmiyadood ee ugu badan amxaarada iyo Tigrayga iyo oromada soo saddex maaha iyo Soomaalida canfarta waa shanta kale ee gobolkan ay degaan gobolkan koonfurta shucuubta koonfureed baa ilaa 40 qowmiyadood weeyaan marka waa kuwa yar oo macnaha way yar yihiin qaarkood canfartii way ka badan yihiin laakiin marka la eego waxay noqonayaan quwadda saddexaad ee dalka haddii dal ahaan la isku daro gobol ahaan haddii la isku daro waxaa ka weyn oo kaliya yani waxaa ka dad badan quwad ahaan waxaa ka badanaya amxaarada iyo oromada oo kaliya Soomaalida iyo Tigrayga labadu way ka badan yihiin marka waxaa ku jirta marka halkan qowmiyado culculus baa ka maqan Soomaalida oo qowmiyaddii saddexaad ah way ka maqan tahay awood kuma jirto xisbigana kuma jirto qolooyinka shishe galbeedka jira ee Benishangulkii iyo Gambeelihii way ka maqan yihiin canfartii way ka maqan tahay marka halka xisbiga qaab dhismeedkiisii marka qolooyinkan dibadda ka jiraan taladii waxa gacanta ku haya iyo EPRDF afartoodan qowmiyadoodna gacanta way ku hayaan awoodii markay gacanta ku soo ururtay marka Male Zenawi isagu markii hore EPRDF-tan waxaa la sameeyay dabayaaqadii 80-aadka isagu marka ilaa intaa nin ama madax ka soo ahaa ama madaxda ka mid ahaa mar walbaba ahaa oo saameyn buu ku lahaa markan ay wadanka la qabsaday xisbigiisa baa wadankii qabsaday
dadkan madaxda noqon doona ama ciidamada ha noqdaan ama siyaasiyiinta ha noqdaan in badan oo kamid ah ama isaga soo barbaariyay ama isaga magacaabay awoodiina haystay marka halka marka la eego nin laga haybeysanayo ayuu ahaa isagii baa meesha ka baxay gartay dhinac kale waxaa la kulmay marka isagu uu ka baxayo ayadoo dadkii uu kacdoon jiro dareen uu jiro maxay noo haystaan intan yari waxaa ku soo batay indhihii Tigreega dadku inay soo fiirshaan qowmiyadihii kale inay fiirshaan waxaa soo kordhay musuqmaasuqa waxaa kordhay markii muddo xukunkana markii lagu raago sidiisaba dadka xukunka ku raaga waxaa ka dhasha musuqmaasuq waa arrin qaacido caam ah weeyaan marka musuqmaasuqiina wuu sii kordhay marka halkaa waxay ku keentay markii uu ka baxay fursad intii wax tabanaysay ay qarxaan ay noqotay kacdoon baa bilowday marka kacdoonkan marka Dr. Abiy uu ku iman doono 5 sano uu jiray ninka ra'iisul wasaaraha laga dhigay shucuubta koonfureed buu kamid ahaa waa qowmiyad yar yar oo wadanka boqolkiiba hal meelaha ka ahayn mid kale awood badan kuma lahayn wax weeyaan Tigreegi maadaama uu ahaa amxaaradu way kacdoon amxaaraa jiray oromadana kacdoon isa soo taraya ayaa jiray Tigreegi marka hadday ku noqdaan amxaaradii iyo oromadii labadaba dhib ay kala kulmayeen marka qoladan afraad oo aan awood ku lahayn oo ayaga aan saddexdana isfiirsan jiray qoladan afraad marka waa lagu yarriixay markuu dhowr sano celiyuu meesha hayn kari waayay markii dambe waa kii iska casilay marka kuleelkeedii waa tahay aad baad u maasantahay kacdoonkan hadda dhacay 2018 oromada mudaharaadadii badnaa markii hore ka soo bilowday caasimadda Itoobiya Addis Ababa kadib horseeday in ra'iisul wasaarihii dalka disaneen inuu iscasilo istiqaarada dhiibo kadibna meesha waxaa yimid Abiy Ahmed marka dadka qaarkood waxay isweydiiyaan kacdoonkaas iyo dhibaatadaas iyo howlahaasi socday ee isbedelka sababay ama waxaan kacaanka u muuqanayay ma waxay ahaayeen wax muddo dheer soo taxanaa oo ka dhashay volcano muddo dheer aasneed oo isbiirsatay oo xilligeedii soo gaaray dadka qaarna waxay leeyihiin maya saameyn ayaa jiri karta oo ah gacan saddexaad oo dahsoon oo awoodda caalamka maamusha oo hadba dhinaca ay doonaan adduunka u jeediya kuwaasaa ku lug lahaa sida ninkan sida sahalka ah isagoo weliba nin hore loo yaqaanay oo siyaasi weyn aan ahayn oo u soo baxay ama awoodda loogu dhiibay waxay leeyihiin gacan kale oo saddexaad ayaa meesha ka dambayso oo ku lug leh oo u sheegtay xitaa nimankii kale ee Tigreega ahaa muddada dheer ee hadda dhowr 20 sano Itoobiya maamulayay in ay isdejiyaan isla markaana aanay faragelin ayna u dhaafaan ninkan in awoodda dalkaasi u maamulo marka adiga aragtidaada maxaad is leedahay way sababeen in kacdoonkaasi uu dhaco Abiy Ahmedna uu yimaado ma wax iskood u soo kacay oo iska dabiici ahba mise waxaad qabtaa in ay gacan kale saddexaad ama shisheeyana ay ku lug leeyihiin horta inay soo kacday iskeeda u soo kacday taas shaki kuma jiro sababtoo ah laba quwadood baa isbahaystay oromada kacdoonkoodu ilaa nus qarni uu soo taxnaa ilaa 60meeyadii laga soo bilaabo waxay ku soo jireen kacdoon bay ahaa halgan joogto ah bay ku soo jireen halgankoogaana waxaa lafdhabar ka ahaa inay aaya ka talin helaan baa lafdhabar ka ahayd markii EPRDF-tu ay timid waxoogaa yar furfuran u yimid waxoogaa yar bay yar khafiifeen haddana halkii bay kasii socotay marka halkaa marka la eego oromadu dareenkoodu ma ahayn mid ku dhisnaa ama qof ama cid gaar ay soo abaabushay laakiin waa dhibaatadii iyo waxyaabihii iyo waana waxaa nus qarniga soo taxnaa waxaa soo labeeyey amxaarada markay awoodii waayeen dabcan waa dad waa qowmiyad weyn oo culus soona talinaysay dadkan oo dhan soo haysatay marka halkaa marka laga eego iyaguna damacna wuu galay inay awoodda ay marka kacdoon amxaarana oo marba heer marayena inuu soo bilowday marka markan waxaa labadii baa mid isku tegay marka haddii amxaarada iyo isu tagaan oromadu dal ahaan markii la eego yani aqlabiyadii waa boqolkiiba 70 nagsi badan yihiin adigu aad u dhexdeemeeyay noqonayaan qiyaastii marka waa aad u badan yihiin marka saas loo eego waxa kale oo ku jirta aqoontiina iyagu ku badan yihiin hantidiina inta ugu badan iyaga haysta ciidamadun bay Tigreegu ku badnaayeen awoodda ay hagaashaan dhigiyay meelahaas iyo nabad sugidda ay adkaysteen amniga bay ka yar haysteen marka dhankaas ku jirtay marka arintu way isu soo taraysay markii dambe marka waxay noqotay Itoobiya inay dabcan 2017 ayaa waxa soo baxday in sida ay tahay inayna ku sii soconaynin
waayo Tigray Oromadii iyo Amxaaradiiba kacdoonkoodii way joojin waayeen sidii 2015 ay u bilaabeen way kala joojin waayeen kala joojin la'aantaas oo haddana magaaladii caasimadii iyo hareeraheedii ay ka mid yihiin bartankii dalku uu ku jiro waxa abaabuleyna ma aha xisbigan laakiin waa xisbiyo mucaarad ah laakiin isla qowmiyadii Amxaarada iyo isla qowmiyadii Oromada waxa markii dambe waxay noqotay arrin iswada gaadhay markii dambe waxay soo gaadhay yani sida laga sheegayo in ra'iisul wasaarihi talinay wasiiradu in amarka ka diidaan marka arrintu farahay ka baxaysay qolo walba markii dambe waxay gaadheen dib isku habayso marka xisbigu TPLF shirar buu qabsaday 2017 waxa la bedelay ninkii gobolka Tigreega madaxda ka ahaa hogaaminkoodii hore qaar bay bedeleen kuwa dibadda loo diro safiirro iyo wax laga dhigay kuwa xilal loo soo dhiibay dib bay isu habeeyeen marka waxay filayeen inay qaabun si uun yeelaan moogtay arrintu haddana way kontrooli kari waayeen farahay ka sii baxday markii dambe waa kii ra'iisul wasaaruhu marka arrintu waxay u yara badan tahay in waxyaabo dabiici oo iswaday ay ahaayeen way dhici kartaa markii la arko in arrintu halka marayso dadka kale danaha wadamada kale danaha kale inay soo farageliyaan soo yar farageliyaan ay talooyin iyo laakiin talow faragelin weyn oo muuqata ma aanay jirin waa tahay marka imaatinka Abiy Ahmed oo nin Oromo ah oo aad hore u soo sheegtay in Oromada aysan hore fursad ugu soo helin in awood inta la eg ay soo gaaraan oo dalka Itoobiya ay ka noqdaan madaxa ugu sareeya ama ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynaha way leedahay laakiin madaxweynaha waa iska ceremonial waa iska madaxweyne sharafeed marka hawsha waxa wada waa ra'iisul wasaaraha marka maxay ka dhigan tahay in nin Oromo ah hadda uu ka talinayo dalka Itoobiya siyaasad ahaan maxay ka dhigan tahay maxayse ku soo kordhin kartaa ama ka bedeli kartaa jiritaankii iyo qaabkii hore ee Itoobiya ay lahayd laba dhinacba horta waa isbedel weyn waxay dhamaystiraysaa isbedeladii hore soo taxnaa awood waxay ku urursanaan jirtay reer waqooyiga Tigreega iyo Amxaarada gacantoodii way ka baxday macnaheedu haddii nin Oromo ra'iisul wasaare ka yahay orthodox Kristaana bay ahaayeen ninkani orthodox ma aha dhinaca marka la eego diin ahaan farahoodii way ka baxday qowmiyad ahaanna wuxuu noqday waa qowmiyad aan hore u talin Oromo oo aqlabiyadii ah marka halka marka la eego waa isbedel weyn oo Itoobiya ku yimid bay ka dhigan tahay dabcan isaga culeysyo badan ayaa qabsanaya oo halka waxa ku jirta macnaheedu ma aha markii Oromo ay meesha qabsatay ama ra'iisul wasaare Oromo in wax walba ay xalismayaan wax walba ay xalismayaan hadda uu koow ah mushkilo oo dhan dibka ugu weyn haysto waxa ka mid ah tusaalahaan isagu soo ra'iisul wasaare ma noqon Oromada jabhadda kicisay jabhadiis xisbigiisa ma ahayn asaga hore wuxuu ugu jiray EPRDF isagu EPRDF jabhad kamid ah oo ODP oo loo dhintay ayuu ahaa xagga ula socdo markii hore ilaa hadaba uu yahay laakiin jabhadii kale ee Oromada soo kicisay mucaaradka OLF ee soo jirtay muddada dheer soo halgantay way joogtay kama tirsana marka kama tirsana xagga marka culayska ka soo wajihi kara culays weyn baa ka soo wajahaya waxay noqonaysaa isku waafajin karaa Oromadii waa berigii dhaweyd waa kii qalalaaso Addis Ababa wuxuu aad iyo aad markii ay hogaamiyaashoodii ku talku ay yimaadeen iyo Amxaaradii Oromo Liberation Front iyagii Amxaaradii iyo dad kale isku dhaceen marka sidee buu Oromadiisi u xakameyn karaa sidee buu u kasban karaa Oromadii inuu noqdo ninka metelaya kacdoonkii xisbigii mucaaradka ah ee Oromada sidee buu ula yeelan karaa wax inay wax wada wadaagaan culays badan baa dhanka ka haysanaya dhinaca kale culays kale wuxuu ka haysanayaa maadaama kacdoonku Amxaari Oromo uu ahaa markii Oromo madax noqotay Oromadu waa inay Oromo waxay ku jirtaa qowmiyadihii la dulmiyay marka furfurankan iyo waxay ka mid tahay danteeda haddii cod la aadana waa wadankii waa qowmiyadda waa tirada badnayd Amxaaradu marka halka la gaaro marka la mid noqon mayso isku ajenda ma noqonayaan Oromadu waxay door bidaysaa wadanku inuu yeesho madaxweyne awood fulineed leh oo marka la soo dooranayo aqlabiyad in iyagu helayaan bay ka soo qaadayaan Amxaaradan iyo Tigreega iyo waxay iska jecel yihiin in ra'iisul wasaare awood leh la sameeyo madaxweynihiisi cid kale loogu dhiibi karaa halka xataa habka hanaanka siyaasadeed ee dalka marka inta hore aad la iskuma weydiinayo laakiin markii taladii ay gacantooda soo gashay intii wada socotay ayaa wax isweydiin doona xataa waxaad arkaysaa xisbigiisii EPRDF waxay noqotay inuu dib isu habeeyo kongareeskiisii 11aad inuu bishan October bilowgeedii u qabsaday xisbiyadiisii ay qaarkood magacoodii bedeleen sida xisbigii Oromada oo kale magacoodu uu bedelay hogaankoogina waa la bedelay Tuur Abiy baa ku soo baxay xisbigii Amxaaradu sidaas oo kale tuu sameeyay marka
طبعا marka waxaan isbedelinun qoladii Tigreegun baan xisbigooda sidiisii u yahay ha sidiisii طبعا iyaguna 2017 ay dib u habeyn isku sameeyeen waa tahay aad baad u mahadsantahay su'aal kale oo dad badan ay isweydiinayaan waxyaabaha ugu waaweyn 60 bilood hadda ugu dambeysay xukunka dalkaasi uu hayay Abiy Ahmed kolley qofka markii awood uu la wareego ama xukun uu la wareego sida dasaatiirta qaarkood ay qorayaan xitaa 6 bilood lagu jaangooyaa waxa la yiraahdaa 6 bilood ugu horeysa waxaasan qabanaya qofka meelaha muddada ugu kooban oo isbedel la dareemi karo marka adiga aragtidaada 6 bilood oo hadda xukunkaasi uu hayay ee ugu horeysay waxyaabaha uu qabtay ee la taaban karo Abiy Ahmed maxaad ka xusi kartaa Dr. Abiy marka la eego 6 bilood waxyaabo muddo ahaan marka loo eego la islaha ma qabsoomi kara yani inay qabsoomaan ay cuslay ayuu qabtay baa la oran karaa waxyaabo sameeyay horta waxa kamid ah dawladihii dariska oo in badan oo kamid Ethiopia oo dhinac faylal kala doonay kaga furnaayeen wuxuu ku guuleystay mashaakilkooda inuu zero ka soo dhigo Soomaaliya iyo Eritrea ugu horeeyaan Soomaaliya iyo Eritrea ugu horeeyaan marka waa meelahaas marka waxa weeyaan inuu mashaakilkooda zero ka soo dhigo waxa kale uu sameeyay in xaaladii degdeg ahayd ee wadanka amni ahaan saarnayd inuu meesha ka qaado marshal loogi wuxuu ahaa waxa kale uu sameeyay jabhadihii iyo axsaabtii argagixisada qornaa ayuu ka argagixisnimadkii laga qaaday dibadda ay joogeen marka inay dalkii ku soo noqdaan ayay noqotay markii jabhadii ugu darnaayeen la dagaalamayay Oromadu ay kamid ahayd Amhaarada Soomaalidu ay kamid ahayd dibadda joogay Gimbood 7 qolada kale tan dibadda ay joogeen ayaguna dabcan laakiin kuwan kale mugta way hubaystaan marka inay soo noqdaan ay dalkii soo galaan siyaasiyiinta xisbiga ka soo daay ilaa 6,000 oo qof ayaa lagu qiyaasaa siyaasiyiinta xirna ee xabsiyada laga sii daayay waa tiro aad weyn dhaqaalaha hab furfurnaansho ku bilaabay siyaasado furfurnaansho qaatay xorriyadii in ugu yaraan dadka xuquuqdoodii la ilaaliyo ayuu sheegay marka qodobada marka loo eego inta kale tan waxaan xisbigiisina inuu dib u habeeyana uu isku dayay oo markan doorashadu ay dhacayso waa isaga dib marka muddada marka la eego inay 6 bilood intaas ku dhacdo waa in aad u culus gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo jabhadaha oo intooda badan ay ahaayeen arrin xaqiisa ka imanaysay qaarkood waxay ahayd lagu qabsaday inta laga tashaday go'aana lama wada qaadan marka waa waxyaabaha qaarkood waxa kamid ah mid dhaqaale ahaan wadanku markii hore wuxuu ahaa waxa lagu tilmaamaa EBRDF to siyaasadda u qornayd waa siyaasadii hanti wadaaga oo waxa lagu tilmaamaa bidix fog inay ahaayeen dawladda dhaqaalaha aad gacan u weys inay maamusho iyadan qodobadii marka la furfurin ayuu go'aano qaatay awoodiisii ra'iisul wasaare ah marka in shirkadihii iyo waxyaabihii lagu sameeyo in private la soo nooleeyo marka taasna waa waxyaabihii aan la marka muddada marka loo eego 6 bilood wax weyn buu qabtay waxa lagu qiyaasi karaa wuxuu dareemayay baad moodaa markii sidii wax u dhacayeen la eego muddadu markay sii dheeraato culays gudaha weyn inuu ku iman doono ama qoomiyadaha kala duwan kaga yimaadaan ama xisbiyada kala duwan kaga yimaadaan ama xisbigiisa laftiisa dhexdiisa kaga yimaadeen marka gees la'aad kuleelka lagu gooyaa marka arintu inta markii hadda lagu dhawaaqay cidina kama hor imanayso wala aamusan intii la aamusnaabo marba talaabo qaada iyadoo tii hore la yaabay mid kale ku dhawaaqa iyadoo la yaabay mid kale ku dhawaaqa waxa cuslaanay in dib loo celiyo marka waxaad moodaa inuu tacticaas u qaato mid kamid ah arrimihii uu sameeyay dadka qaarna ay ku dhalilaan waxa kamid ahayd in jabhadihii dagaalamayay oo hubkoodii wata ay toos isaga soo galeen magaalooyinkii iyagoo aan wax qorshe loo sameeynin oo meel la dejinin oo horey ayagana ay yiraahdeen anaga waxaan rabnaa inaan hore aan kala falgalno dawladda xukuumadii oo aan mushaarkeena iyo waxayna aan hore ka fiirsano marka kacdoonadii hadda ugu dambeeyay ee oromada ay sameynaysay ka soconay Addis Ababa oo dhibaato badan ay u geysteen qoomiyada kale ama xaaradaba ha ugu horeyso waxa la sheegaa in sababta ay ahayd OLFT hubaysnayd ama jabhadii Oromo Liberation Front in ay hubkoodii la soo galeen magaaladii ayaga marka ay kacdoonkaas iyo waxaas madaxdoodii maadaama ra'iisul wasaaraha sidaad hore u sheegtaba uusan markii horeba uusan ahayn xubin ka tirsan OLF-ta in iyaga ay qaskaas iyo abaabulkaas sameeyeen marka taa ma la oran karaa waxay ahayd qalad uu sameeyay Dr. Abiy si kala loo dhigi karaa si kala taa uga fudud sameyn kari lahaa ma jirtay waa tahay
markii xaggaa laga fiirsho si sidaa ka duwan u samayn karaayay hadduu yidhaahdo waan sii caburinayaa oo awood baan kusii haynayaa awood ma lahayn laakiin haddii xoog le waxaa ku jirtay oromadii iyo soomaalidii buuq badan baa ka dhex jiray oromadii iyo qowmiyadaha kale buuq badan baa ka dhex jiray dhinacan shucuubta koonfureed buuq badan baa ka jiray oo barakac badanna wuu ka jira dabcan aad warbaahinta uma sheegto marka qodobadaa marka la eego awood umay lahayn xukuumaddiisu inay wax xakamayn karto sidaa darteed tallaabooyinka uu qaaday intaan culeysyadu kusoo kordhin ayuu kasii hor dhacay marka waxaa la dhihi karaa waxyaabo uu ku qasbanaa waxaa laga yaabaa midda kale mugtay way u sii fikirayaan qorshaa loo sii degayaa marka ayaga oon weli arrintii fahmin oon diyaar garoobin ayuu isagu kala hor dhacay marka haddii halkaa loo eego wixii tabartiisa ah intuu samayn karayay ayuu sameeyey intayna ku cuslaan hadduu sugi lahaa way kaga cuslaan waa tahay daawadayaal haddaad hadda nagu soo biirteen waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda kalsan ee telefishinka caalamiga ee kalsan toddobaadkanna aan si gaara diiradda ugu saarayno arrimaha dalka Itoobiya iyo isbedeladii ugu dambeeyay ee ka soconayay dalkaasi ee hoggaanka uu hayay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed barnaamijka waxa igu marti ah haddaadan hore ula socon ustaad Mustafa Abdullahi Fayrus oo ah bara jaamacadeed baaritaanna ku sameeya arrimaha geeska Afrika iyo guud ahaan arrimaha caalamka qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan hadda soo gaarnay su'aasha aan jeclahay markaan inaan weydiiyo ustaad Mustafa waxay tahay gobolka Soomaalida bal aan soo aadno gobolka Soomaalida ama ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya sidee uga faa'iideysan karaan waxaan ognahay Eritrea hadda way ka xorowday oo dal madax bannaan oo gooni ah sidee marka gobolkan Soomaalida haddii ay ka go'ayaan iyo haddii ay qayb ka sii ahaanayaan midii doonta ha ahaatee sidee uga faa'iideysan karaan oo ay ula jaan qaadi karaan isbedeladan hadda ka soconaya dalka Itoobiya si maslaxa ay ugu jirto dadka Soomaaliyeed ee degan gobolkaas horta waa su'aal weyn oo meesha ku jirta dabcan cid walbana is weydiinaysa Soomaaliduna si gaar ah ay isu sii weydiinayaan waana tii su'aashii markii hore ee 19 oo kale markii la eego qowmiyadda Soomaalida ee gobolka qowmiyadda Soomaalidu waa qowmiyadda saddexaad ee Itoobiya amxaarada iyo oromada kaliya ka badan tigreega Soomaalida ka badan dabcan dhul ahaan marka la eegana waa qowmiyadda waa dhulka labaad balaarahan marka dhulka la eego waa dhulka labaad iyagoo waliba magaalooyin ay Soomaali degantahay gobolka oromada ku jira ay jiraan hadalika markaas uu yahay hadii magaalooyinkaasi waxyaabahaas laga yaabo Soomaalidu ay isbahaysato oo ay heshiisan waxa laga yaabaa inuu koowaad noqdo waa midda dhinaca kale marka la eego awoodda xukunka dalka kuma jirin oo jabhadan xukuntaba xisbigan EPRDF oo xukumaya qowmiyadda ugu ballaaran ee ka maqnayd waxay ahayd Soomaalida waxa soo labeeyay waa afarta way ya soo labeeyay qowmiyadaha kale intooda badan muxuu ahaa waxa ku jirta dhanka horumarka marka la eego gobolka Soomaalidu Itoobiya wuxuu ka mid yahay gobolada dhanka horumarka ugu liita 2015 qiimeyntii lagu sameeyay horumarka bani aadamka gobolka Soomaalida waxa ka hooseeyay gobolka Canfarta oo kaliya inta kale oo dhan way dhaameen isaga way dhaameen marka saas marka loo eego aad u liitaan xilligan markii hadda isbedelku u yimid waxyaabaha dhibaatada oo ka haystaan waxa ka mid ah siyaasad ahaan ma abaabulna khilaafaad dhexdooda xoog leh lagu jira khilaafaadkaas ama hab qabaliya ha noqda waxyaabihii dhacayay ee maamulkii hore saameyntii ay kaga tageen dib weyn ayay u geysanaysaa marka maadaama ayna abaabulnayn waxay noqonaysaa tallaabo kasta oo cidii abaabulan baa tashan karto tallaabo qaadi karta maadaama ayna abaabulnayn axsaab fiican ayna lahayn muwaafaqo ayna jirin dhexdeeda hoggaanku uu kala daadsan yahay si lama filaana arrintu isbedel u yimid marka wax badan ka faa'iidi karaan weyn tallaabada ugu weyn ee la gudboon waxa weeyaan kaliya inay is abaabulaan oo dhexdooda ay isxaliyaan oo ugu yaraan khilaafaadka qabiliga iska yareeyaan waxyaabo noocaas oo kaleeta ah kadib marka waxay noqon karaan quwad xisaabtanta oo kaalin fiican qaadan karta ay noqon karaan waa tahay ustaad waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka su'aasha ugu dambaysa toddobaadkan Dr. Abiy Ahmed wuxuu ku dhawaaqay golo wasiiro wasiir u dhashay Soomaali ama ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda bal arrintaas maxay ka dhigan tahay ama Soomaalida uga dhigan tahay ama Dr. Abiy Ahmed ay uga dhigan tahay horta tan waa isbedel markii caqli ahaan la eegana la filayay in ay meesha ay soo galaan Soomaalidu
waxyaabaha muuqda waxaa ka mid wasiirka maaliyadana waxaa laga dhigay Soomaali Ahmed Shide wasiirka gaashaandhigana waxaa laga dhigay Canfar labadii qowmiyadood ugu liitay weeyaan xagga moogtay markii la eego kuma jirin awood kuma jirin marka hore afartii qowmiyadood kale ka mid waxa weeyaan Soomaalidu waa qowmiyadda saddexaad waana qowmiyad firfircoon waana dad ganacsiga ku fiican waana dad dhabarka ku haya qowmiyad ballaaran oo Soomaali leedahay Itoobiya wax ka baxsanaadaan ay dhabarka ku hayaan marka cid kasta oo Itoobiya xukunkeeda haysa waxay ka fikirtaa Soomaalida hadday islaayaan xukunkoodu meel dheer ma gaari karo waxa weyn Tigreegu bergii ay yimaadeen way isku dayeen inay Soomaalida bahaystaan si amxaarada ay isaga dhiciyaan maadaama ninkan imika uu yimidna inuu kasbado Soomaalida waa marka ugu horeysa arinta caqligalka mideeda kale Oromada iyo Soomaalidu dad walaalay ahaayeen dad deris ay ahaayeen dad isguursaday ahaayeen badankoodu waa muslimiin halka marka la gaaro Soomaalida iyo Oromadu yani waa midkoodba midka kaleeto inuu garab waxa soo sadeexaya waa Canfar xuduud dheer bay leeyihiin Oromada iyo Soomaalidu marka halka yani waa talaabo waxa muuqanaysa oo isagu inuu jecel yahay Soomaalida inuu bahaysto saasa ka muuqanaysa laakiin inteeda ugu badan hadda waxay noqon doontaa Soomaalidu say ula falgashaa haddii Soomaalidu ay si sax ah ula falgali weydo fursad kama faa'iideysan karaan haddii laakiin ay si sax ah ula falgasho fursad bay u noqon kartaa ay awoodda in ka badan ay ku sii heli karaan waa tahay gabagabadii aan soo gaarnay waxaan rabaa inaan dhowr sakan ku siiyo bal adiga oo daraskaaga ma kula tahay in Abiy Ahmed isbedeladan xawliga leh uu samaynayo ay sidooda ku socon karaan iyadoo wax caqabado waaweyn aysan soo wajihin mise waxaa laga yaabaa mustaqbalka in gaar ahaan amxaarada iyo Tigreega oo hore dalkan u maamuli jiray inay u dhigaan taakooyin badan iyo turaanturooyin badan ay u sameeyaan oo ku fidoono mustaqbalka horta taakooyinku maaha amxaare iyo Tigreeg kaliya maaha xilligan soo socda waxaa lagu tilmaami karaa Dictor Ethiopia waxay kalaysaa xilli kala guura Ethiopiyadii hore iyo mustaqbalka siday noqon doonto aad loo garanaynin xilliga kala guurka ay noqon doontaa doorasho 2020 ku soo socota jirta waxa laga yaabaa kala arrimo inay aad u kala cadaan doonaan doorashada 2020 laakiin inta ka horeysa waxa weyn mucaarid xoog la jira Addis Ababa buuqii ka dhacay weeyteen ogeynay Oromada iyo Amxaarada 1200 oo qof lagu xirxiray tiro kontomeeye ah ama ka badanba sidii meelaha qaar la sheegay inay ku dhinteen waqooyiga shishe xagga markii la joogo Benishangoolka ayagana dad badan baa qaxay ilaa 700 kuna tiro badan baa ku dhimatay ilaa kontomeeye ah gobolkan koonfurta markii la eego waxa lagu tilmaamaa barakaca ugu badnaa ee dhacay nuskii hore sanadkan 2018 wuxuu ka dhacay Ethiopia awal hore Syria ugu badnaan jirtay adduunyada Ethiopia ka horumartay milyan iyo 400 baa ku barakacay IDP noqday gudaha ilaa 1 milyan 6 bilood oo Dr. Abiy joogay baa ahayd waxay ka barakacayaan waa maxay waa gacan ka hadal iyo qoomiyado islaamaya intaas oo dhan waa wada culeysyo marka Oromadu say wada socon doontaa Oromadii Amxaaradu say wada socon doontaa qoomiyadaha dadka xuquuqdooda sidee loo ilaalin doonaa marka waxay dhowr arrimood inay isku faajiyo culeys ku qabsan doonaa inuu isbedel siyaasadeed sameeyo horumar dhaqaalena inuu sameeyo wadanka inuu isku hayoon la kala googo'in nabadgelyadana la ilaaliyo dastuurkii xuquuqdii muwaadinka iyo qoomiyadu ay lahaayeen aan lagu tumanin intoodaas ayaa la isku waafajin karaa waa in wada culus weeyaan dabcan muddada kooban ee ka hadhay doorashada 2020 qolooyinkii mucaaradkuna way soo galeen way iswada abaabulayaan sideebuu mar labaad siyaasadda ugu soo noqon waa nin damac siyaasadeed leh iyaduna xisaabta way ugu jirtaa marka hawsha sugaysaa ma yara dabcan aad baad u maasantahay daawadayaal guud ahaan